kulan habboon daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada haatan daawa doontaana waxaa ka mid ah boqolaal ka tirsan ciidanka Itoobiya oo la wareegay ammaanka guud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xilli halkaasi la filayo in dawladda Soomaaliya ay saacadaha soo aadan weerar ciriyo dhul ku qaado si ay uga hortagto doorashada hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen kooxda xoutiyiinta dalka Yemen oo mar kale soo saaray hanjabaad culus oo la xiriirta beegsasho ay ku sameeyaan qaar ka mid ah dalalka Geeska Afrika ee saldhigyada Mareykanka ku leeyahay iyagoona si gaar ah u carabaabay aeroboortka dalka Djibouti halkaas oo la sheegay inay degan yihiin ciidamo ka tirsan dawladda Mareykanka oo la doonayo inay ka hortagaan in la xiro marinka Bab al-Mandab Jubbaland oo dawladda federaalka Soomaaliya uga digtay weerar ay ku qaado magaalada Baydhabo iyagoona sheegay in si lamid ah dhacdooyinka Raas Gambooni ay kala kulmi doonto dawladda federaalka Soomaaliya haddaba muxuu yahay hadalka ka yimid Jubbaland miyaysan jiraan taageero toos oo Axmedoobe u fidinayo hogaamiyaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo sheegay in dawladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay qaaday wadadii kaligilisnimada ee shalay asaga ku dhaliili jirtay qodobadaas oo faahfaahinaya saaxiibayaal ku daawo doontaan barnaamijkan intuu hawada ku jiro balse daawadi haddii aad ku cusub tahay muuqaalka like kanaalkana subscribe kana mid noqo saaxiibada halkan ku xidhan si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararka halkan aan ku soo gudbino aynu ku bilownay sida ay xaqiijinayaan xogo ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidoo kalena xarunku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxay xaqiijinayaan in magaaladaasi la dhoobay ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan ciidanka dalka Itoobiya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya iyagoona la sheegay in ciidankaasi la geeyay magaalada banaankeeda iyo sidoo kale goobaha kale xarumaha u ah maamulka Koonfur Galbeed uu doonayo inuu doorashada ku qabsado xilli cabsi xooggan laga qabo weerar saacadaha soo aadan ay ku ekaydo dawladda federaalka Soomaaliya magaaladaasi oo ay socdaan abaabuladii ugu dambeeyay dhinaca kalena magaalada Buurakaba ay ka soo dhaqaaqeen ciidankii ugu badnaa oo isugu jira kuwa la magacbaxay badbaadada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale kuwa militariga Soomaaliya sida xaqiijinayaan xogo ka imaanaya magaalada Baydhabo ciidamada dalka Itoobiya oo la sheegay inay buuxiyeen magaaladaasi ayaa lagu wareejiyay goobaha muhiimka ah la filayo in sabtida soo aadan ee berrito ay ka dhacdo doorashada maamulka Laftagareen iyo sidoo kale markaasi ciidamada la geynayo banaanka magaaladaasi hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa haatan isku haleynta weyn ee hawsta ciidanka Itoobiya ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kuwaas oo hore kursiga u saaray waxaana la xaqiijinayaa in ciidanka Itoobiya ay haatan si toos ugu biirayaan dagaalka haddii dawladda Soomaaliya ay weerar ku soo qaadana ay Laftagareen la safan doonaan ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay in la wareegeen amniga guud ee magaalada Baydhabo iyadoona ciidankii Laftagareen ee daraawiishta la geeyay banaanka magaaladaasi si ay uga hortagaan weerar ka yimaado dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya Laftagareen waxa uu markaasi doonayaa in ciidanka Itoobiya ay difaacaan maadaama uu Addis-Ababa ka haysto kalsooni dheeraad iyadoona markaasi cabsi laga qaban halkaasi isku farasaaraan ciidamada dawladda ee weerarka soo qaaday iyo kuwa militariga Itoobiya ee ku sugan halkaasi si kastaba haatee magaalada Baydhabo waxaa ku sugan ciidamo tirabeela oo ka tirsan ciidanka dalka Itoobiya waxaana dhinaca kale socda weerar qorshaysan oo dawladda Soomaaliya ay doonayso inay ku ekayso magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay gudaha magaalada Buurakaba waxaa la soo warinayaa in la geeyay ciidamo ku dhow 1000 askari oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ciidamadaas oo ay ku jiraan sidoo kale ciidamo la magacbaxay badbaadada Koonfur Galbeed ana hoggaanku hayaan wasiirka xanaanada xoolaha dawladda Soomaaliya Xasan Eelay wasiir dawladda arrimaha gudaha iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadan waxa markaasi la sheegay in ay u dhaqaaqayaan saacadaha soo aadan dhinaca magaalada Baydhabo si ay uga hortagaan doorasho oo halkaasi ku qabsanayo hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen xubnaha hogaaminaya ciidamada ee ku sugan magaalada Buurakaba ee gobolka Bay ayaa xaqiijiyay in ciidamadan ay saacadaha soo aadan ku wajahan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaas oo cabsi xooggan laga qabo dagaaladii ugu cuslaa oo halkaasi ka qarxa daawadayaal qodobo kale xasaasi ah ayaa inoo soo socda balse daawadi haddii aad ku cusub tahay muuqaalka like kanaalkana subscribe kana mid noqo saaxiibada halkan ku xidhan si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararka aan halkan ku soo gudbino haddii aad hore noola joogteena ku mahadsan daawada la jaanqaadka wararka iyo barnaamijyada halkan aan ku soo gudbino kooxda xootiga ee ka dagaalanta dalka Yemen oo koox awood badan oo ay taageerto dawladda Iran ayaa markii ugu horeysay soo saaray go'aano xooggan oo ku saabsan ku biirista dagaalka iyo inay xirayaan marinka Bab al-Mandab oo ay ku hareeraysan yihiin Soomaaliya iyo sidoo kale Djibouti wararku waxay sheegayaan hogaamiyaha guud ee kooxda xootiyiinta dalka Yemen Cabdimalik al-Houthi oo markaasi soo fariistay warbaahinta ku hadasha afka kooxdaasi ayaa ka hadlay weerarada Mareykanka ee dalka Iran iyo ku biirista kooxdan oo ay taageerto markaasi
oo ay taageerto markaasi dowladda Iiraan kana mid ah kooxaha gobolkan ay ku leedahay xukuumadda Tehran. Kooxdan oo muddo dheer la sheegay in dagaalkan ay ka mirmeeraysa ayaa haatan ku dhawaaqday inay si toos ugu biirayso dagaalka iyadoona xiraysa marinka badda cas ee Bab al-Mandeb. Tallaabadaas oo loo arko mid mar kale dagaalka ka jira bariga dhexe u soo weecin karta gobolka Geeska Afrika. kooxahan waxay ku hanjabeen inay beegsan doonaan dhammaan saldhigyada gobolka ay leedahay dowladda Mareykanka waxaana sidoo kale markaasi wakaalada wararka ee Tasniim ee laga leeyahay dalka Iran ay xaqiijisay markaasi in kooxahan ay bilaabayaan weerarada tooska ah haddii Mareykanku isku dayo inuu weeraro jasiiradda Karaag ee ku taala markaasi dalkaasi Iran oo ay jasiiradda laga dhoofiyo inta ugu badan shidaalka Iran Mareykankuna doonayo inuu qabsado. Iran ayaa si toos ah markaasi Djibouti ugu dartay liiska dalalka ay weerari karto kadib markii la sheegay in Mareykanku ciidamo markaasi ka tirsan kuwa Mariniska iyo Delta Force ee diyaaradaha iyo dalaayadaha ku duula ay ka soo dejiyeen dalka Djibouti oo saldhig ku leeyahay markaasi Mareykanka. Djibouti ayaa saldhig muhiim ah oo saldhigga weyn Geeska Afrika ee dowladda Mareykanka ku leedahay waxaana sidoo kale ku raaxaysaa marinka Bab al-Mandeb sidaasina uguma foga kooxda xoutiyiinta dalka Yemen taasi oo mar kale cabsi gelisay dalka Djibouti oo dal markaasi aan hubaysnayn isla markaana haysan nidaamyada difaac ee markaasi ka hortaga gantaalada. Iran waxa ay shaaca ka qaaday in Mareykanku uu dalka Djibouti keenay ciidamadaasi iyagoona doonaya inay ka qayb qaataan weerarka Iran iyo sidoo kale in laga hortago in kooxda xoutiyiinta dalka Yemen ay markaasi xiraan marinka Bab al-Mandeb. Tallaabadaas oo sababi karta in markaasi kooxaha xoutiyiinta dalka Yemen ay beegsadaan gudaha dalka Djibouti. dhinaca kale dowladda Djibouti ayaa isku dayeysay in Mareykanka ay ku qanciso inuusan ka weerarin gudaha dalka Djibouti maadaama tallaabadaasi ay dhalin karto markaasi khasaare xoogan iyo in dagaalkan ay si toos lugaha lagu galiyo dhalinyarada Djibouti ee dhaca marinka Bab al-Mandeb. Xiisada bariga dhexe ayaa sii faaftay waxaana cabsi xoogan laga qabaa in dalalka gobolka Geeska Afrika oo ay Soomaalidu ku jiraan in uu ku fido. wararka Xogay TV ayaa daawanaysan. Jubbaland ayaa uga digtay dowladda federaalka Soomaaliya weerar ay ku qaado magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kaas oo cabsidiisu ay sii korortay waxaana wasiirka wasaaradda arrimaha warfaafinta ee maamulka Jubbaland qoraal uu soo saaray uu ku sheegay in dowladda Soomaaliya uu wadigayo weerar ay ku qaado magaalada Baydhabo si aysan ugu dhicin si lamid ah dhacdadii Ras Gamboni ee dhacday dabayaaqadii sanadkii 2024 kadib markii dowladda Soomaaliya sidan weerar lamid ah oo siyaasadeysan ay ku qaaday hogaamiyaha Jubbaland kaas oo Kismaayo isku doortay waxaana tallaabadaasi filla Soomaaliya ay uga jawaabtay weerar ay ku qaaday magaalada Ras Gamboni oo ciidanka dowladda Soomaaliya laga dejiyay hase ahaatee weerar culus oo ciidanka Axmedoobe ay ku soo qaadeen magaaladaasi ay sababtay in ciidamada dowladda Soomaaliya lagu jabiyo isla markaana ay xadka iska dhiibaan ciidanka ugu badnaa oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Jubbaland waxay mar kale ka digteen ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya loo adeegsado arrimo siyaasadeed iyadoo la isku baabi'inayo iyadoona xusay in madaxweyne Xasan Maxamuud uusan wax ka baran casharadiisa Ras Gamboni isla markaana uu weli ku indha adag yahay dagaal siyaasadeed oo ku qaado hogaamiyaasha dowlad goboleedyada oo haysta ciidamo la mid ah kuwa dowladda. ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa si kulul uga hadlay xaaladda markaasi dalka gaar ahaan arrimaha la xiriira weerarada filla Soomaaliya ay doonayso inay ku qaado markaasi hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu markaasi ku tilmaamay madaxweyne Xasan Maxamuud inuu qaaday wadadii kaligitalnimada isagoona sidoo kale markaasi eedayn kulul ugu jeediyay dowladda inay xabsi guri ka dhigtay taliye ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeya gaas Mahad Cabdiraxmaan taliye Shuba ayaa arbacadii xilka laga qaaday waxaana la soo wariyay in ciidamo fara badan la dul dhigay gurigiisa oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho iyadoona la xakameeyay dhammaan dhaqdhaqaaqiisa iyo xiriyaashiisa sida ay xaqiijiyeen la taliyaal ka tirsan ilaalada markaasi Shuba. dowladda federaalka Soomaaliya waxay tallaabadani markaani u qaaday in ay ka hortagto dhaqdhaqaaqyo uu sameeyo taliyaan oo sodog u ah hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. tallaabadaas oo markaasi ku tilmaamay Farmaajo mid qariska tuurnimo oo dowladda madaxweyne Xasan Maxamuud ay doonayso inay dalka ku gubto. gudaha daawada lanta soo warkaad kala socoteen kanaalka wararka Xogay TV sidaas nabadgelyo.